بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقييمها يقايها له كحرا شبكة سولا بورتال فيسبوك يوتيوب سولا بورتال سو هذا السي قيبية حقا waxaan filayaa inaan ka soo yara hormarnay sababtoo ah codsi ka yimid taageerayaasha Solar Portal oo yiri caawa ciyaaro aad u xiiso badan koobka Yurub ayaa jira fadlan ka soo hormari waana run waqtigii ay bilaaban lahaayeen ayaan soo galnay marka 2 saac hal saac bar ayaan ka soo hormarnay marka waxaan idin hayaa barnaamij aad u xiiso badan ayaan idin hayaa runtii shalay ma daraad markaan barnaamijkii ugu dambeeyay aan soo sameeyay waxaan idin 48 hours English wuxuu yiraahdaa 48 hours is a very long time for politics afartan iyo 8 saac oo waqti aad u dheer siyaasadda saa awgeed sidaan idinka ballan qaaday wixii soo kordha aan ku soo sheego waan la socotaan Shariif Xasan Sheekh Aadan si official ah ama rasmi ah ayuu u tanaasulay isla markaana isu casilay isagoo ahaa shakhsi u taagan doorashada koonfur galbeed ee lagu waday inay dhacdo muddo iminka 10 maalmood ka harsan isla markaana wuxuu iska casilay dhanka iyo xilkii uu hayay sanadadii ugu dambeeyay ee lagu yaqaanay koonfur galbeed ee Soomaaliya marka maxaa dhacay Shariifka intuu soo toosay hal subax ma dhihin saaka wana casilaya طبعا waxyaabo badan inaga aan ogeyn ayaa jiray waxyaalo aan ognahay anigu kulli intaan soo ogaaday intaan maqlay intaan soo akhriyay waxyaabo badan ayaa jira qofna xil 10 maalmood ay ka dhiman tahay doorasho isma casilo طبعا codadka waxa bixiya baarlamaanka dadka xildhibaanada ah member of parliament ayaa bixiya codka dadka xilligan la joogo ma bixiyaan saa awgeeda public opinion ama ra'yiga dadweynaha muhiimad saasa lama siiyo doorashooyinka ka dhaca wadanka Soomaaliya xilligan aan ku jirno qof walbana waa ogyahay taa sababtaan loo siinin طبعا ma aha inay muhiim yihiin electorate-ka sidii xalay ka dhacday wadanka Mareykanka oo kale waa muhiim laakiin xilligan aan ku jirno muhiimad lama siiyo sababtoo ah hal qof hal cod ma jiro marka Shariifka hadalkiisii uu isku casilay sababta ugu weyn oo isku casilay uu yiri طبعا wuxuu ku sheegay lahjada mayga oo aan filayo dadka inta badan ay daawanaysa inaysan fahmin marka muhiim ma ahan inaan lahjad may aan ku sheego waayo dadka kale ee loogu talagalay inay fahmaan way fahmeen marka wuxuu yiri isaga afkiisa ka yiri galabta baarlamaanka wuxuu ka hadlayaa localka ah ee South West ayuu ka hadlayaa ee aan la soo shaqeeyay inta sano aan la soo shaqeeyay hadii xamar la geeyay oo lagu tashkiilay oo in la iga wado ama laga wado meeshan ay ogolaadeen ana waxaan go'aansaday inaan ka fadhiisto xilka iyo murashaxnimada inaan ka fadhiisto marka hadalkan si fiican u fahma baarlamaankii intaas la soo shaqeynay baarlamaanka waxaan ka hadlaynaa koonfur galbeed in xamar la geeyay waxaan la soconaa in xildhibaano qaarkood ay caasimadda ay tageen Muqdisho xamar la geeyay saas awgeedana la soo tashkiilay ereygu isticmaalay ayaa ahaa oo laga wado ana waxaan ogolaaday inaan isaga fadhiisto haddii ay joogi lahaayeen ayuu sii raaciyay sanduuqa codbixinta ayuun baan ku ogaan lahayn siday wax u jiraan marka haddii informationkii aan helaa in la qaybsado iyo aqligana aan ka shaqaysiiyo Shariifka ma ahan nin ciyaaraya ma ahan marka Shariifka ma intaas kaliya ma aragtay isiri waad ku baxaysaayo baarlamaankiiba hadii la ka haysto oo caasimadda la geeyo ku baxaysaa anigu shakhsiyan Cabdinaasir ahaan waa ay cuntami weysay sababtoo ah Shariifka kuma ogeen in saas u jilcan oo baarlamaan la ka xigay kaliya ku baxaya Shariifka wuu diyaarsanaa uu soo socday marka maxaa kale oo jira Shariifka hal strategic mistake ayuu sameeyay ana waan ogaa waana ka hadlay dad badan waan la hadlay hal strategic mistake oo qalad aad u weyn ayuu meesha la yimid qaladkaas oo ah waxa ku dhacday mahmahdii Soomaaliyeed oo ahayd ninaan ku furi doonin iyo ku rarin ayaa ku dhacday Shariifka si loo tuso awoodiisa iyo wuxuu yahay qolooyinkii isteediyada waxay ka dhaadhiciyeen oo yiraahdeen chairman-keenan ka dhiganaynaa Shariifka bohol ay ka reedeen ragaas dawladda nabadii nolol
qofkii ay toosh ku ifiyaan hawada ayay ka saareen qof walbana waa ogyahay iyagoo mar walba eegaya tabcan danta waddanka eegaya marka shariifka waxaa la rabay inuu yiraahdo bal idinka reer Puntland idinka iga dambeeya idinka hal idin tijaabiyo kadib ani xataa gadaal aan u dhigtay waxaa la rabay xataa inuu yiraahdo electionka ama doorashada ka dhacaysa South West waxaan gadaal u dhigayaa hal sano kale si uu tijaabiyo Puntland sababtoo ah shariifka waa la tijaabay ka dhigteen Jubaland iyo Puntland iyo Galmudug iyo waxay ka dhigteen tan iska daa Hirshabelle sheekada meel bay ku dhamaatay marka wuxuu ahaa state-ka Soomaaliya haddii adiga dagaal ku qaadid adoo state ka mid ah xoogaa awoodda state-ka ayaa ka daba imaanaysa taasna waxay ahayd strategic mistake laakiin waxa kaloo jirta arrin kale oo muhiim ah hadda ka hor ma idin sheega asxaabtii daawata waxaan idin idhi Soomaalidu waxay mar walba ku socotaa mahmahad ah aabow kan yar ee gacalkan waniyaan iska celinaya Soomaali kama baqo saas awgeeda ma laga yaaba waxa la yiraahdo third party ama gacan saddexaad inay meesha soo gashay tabcan nin bay dhaba iga soo warramo oo aad noqla socda arrimaha isla markaana madaxtooyadii meelahaasna galgal ayaa wuxuu ii sheegay taliyaha qaybta saddexaad ee ciidamada Ethiopia oo shakhsi cusub in ayaamahan uu ku soo laalaabanayay uu joogay magaalada Baydhabo uu ku sugnaa marka cadaadis ma dhici kartaa in ex madaxweyne cadaadiskaas la geliyo oo la yiraahdo timekaagu waa dhamaaday ilaan taariikh ahaan waan naqaana waxyaabii hore u dhacay dhowr sano ka hor waxaan ognahay madaxweyneen hadda mise Farmaajo isagoo waddanka jooga in Ugandeska ay yiraahdeen annaga guarantee ma siin karo nabadda ay yiraahdeen waan xasuusnaa ma iloobi karno taas oo waddankeena ra'iisul wasaare isagoo ka ra'iisul wasaaraheeni la yiri nabaddaada ma ilaalin karno oo micnaheedu ay tahay waa reer magaalnimo qaab ah saaxiib waqtigaagu waa dhamaaday ee iska dareer waa nice way of saying waa qaab fiican oo qofka loo yiraahdo marka taliyahan magaciisa la ii soo sheegay magac adag ayuu leeyahay oo qaybta saddexaad ee ciidamada Ethiopia yimid meesha wuu ka mid ahaan karaa wuuna ka mid ahaa cadaadiska marka shariif in uu yiraahdo baarlamaanka intaan sano la shaqeeyay haddii xamar la geeyo oo lagu tashkiilay oo in laga wadanay ogolaadeen anna waxaan go'aansaday taas aniga kulley ima cuntamin mana ka yeelayo laakiin sheekadu way ka weyn tahay sheekada waxay ka bilaabatay waxaad xasuusataan dawladihii hore oo dawladda iminka joogta ee nabadii nolol ka horeeyay ra'iisul wasaarayaasha la isku bedelay iyo dawladda dhacda iyo wax walba waxay ku imaan jirtay cadaadis ka imaada dad badan ayaa ayaamahan waxay ku sheekayseen oo yiraahdeen dawlad goboleedyada haddii aad la dagaashaan nabadii nolol waxaad ku socotaan wadadii wrong wadadaas kuma socdaan dadkan labadii sano ugu dambeysay daraasaad ayaa lagu sameeyay cilmi baaris aad u dheer ayaa lagu sameeyay dawlad goboleedka ayaa lagu sameeyay qaabka loola dhaqmo qaabkaasoo ah iyaga ayay kubadda ag taalaa mar walba ball is in your court ilaa ingiriiska kubadda waxay taalaa meeshaada marka waxaa la yiri qofkii dhibaato ay isagaa soo hadli doona waqtigiisa waa imaan doona waan idin sheegay marar badan inaan idin xilliga uu yimaado doorashada Puntland iyo South West isbedel ayaa dhacaya isla markaana waxaan ogahay qofkii maanta ku guuleysta in uu ka noqdo South West wuxuu noqonayaa qofka electionka federaalka ku guuleysan doona ama group ha ahaadan ama yahaan maanta aan soo qoray marna waa idin sheegay taasi maxay tahay markaa waxay tahay shariifka horta waxaan idin hayaa 2019ka meel iga qora qaarkiin waxaa laga yaabaa inaad tiraahdaan say wax u jiraan 2019ka shariif xasan sheekh aadan waxaad ku arki doontaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku arki doontaan meel iga qora taas go tan kale waxaa idin sheegayaa experimenting aan la sameeyay wuu shaqeeyay waxaa la socotaan waare hadda federaalku ka mid yahay mistaxaaf waa 50-50 ninkana hadda waxaa imaanaya sida hadda lagu wado laba qaybood taasna waa idin sheegayaa waxaa imaanaya shakhsi ka socda dawladda federaalka oo raba danta guud ee waddanka hadduu yimaadana waxay noqonaysaa 3 out of 2 ayay noqonaysaa labada soo haray waa gudoomiyaha gobolka Jubaland iyo gudoomiyaha gobolka Puntland ayaa soo haraya markay soo haraan majority ayaa laga haystaa ama iyaga soo xaroonaya marka tan ka sii darana waxay tahay waxa kale oo imaanaya Puntland sida hadda aan ku maqlay qof ma aragtay mar walba ka horumarinaya danta qaaska ah ee gaarka ka horumarinaya danta guud ee Soomaaliyeed ayaa Puntland ka imaanaya qofkaasna ama ha lagu taageero lacag ama ha lagu taageero hiriho waa in markaa la taageeraa waxaan kaloon akhbaar aan ka haya aan idin sheegaya caawa
dad badan ayaa tartankan galay hadda. Shariifka waa dhaqaaqayaa. Shariifka siduu isaga caddeeyey oo laga hayo tabcan dad baa yiri Shariifka lacag baa la siiyey inta. Aniga ma aaminsani Shariif lacag in la siiyey. waayo maanta lacag iyo wadan ah xukuntid awood ay yeelatid mar walba wadanka fiican lacag way imaataa waa easy come easy go. laakiin Shariifka Juni culus ayaa kor kaga soo dhacday. uusan u adkeysan karin. Ma ahan arinta baarlamaanka ragga la geeyay xamar aan ku soo celceliyay ma ahan. Shariifka awood weyn ayaa timid. tii lagu sameeyay ra'iisul wasaare Farmaajo sanadadii hore ee Ugandayska yiraahdeen dhaqaaji ayaa timid. oo runtii ayaan darro ah oo runtii wax oo maartay haddii Soomaalida ay burin lahaayeen waxayba ahaan lahayd meesha ka timid. marka dad badan ayaa tartamaya. inta badan markaan sii eegay dadka hadda aan dhihi karo wax waa ka soconayaan waxay tahay dadka saarida kugu sheegay cod dad kuma shaqeyso baarlamaanka ayaa dooranaya dadka majority-ga social media dadka waxay indhaha ku hayaan Mr. Robo ayay gacanta ku hayaan. aniga ma taageersanahay maya it's not my cup of tea. laakiin qofku cup of tea yahay I respect that. waxaa jira shakhsi dadka inta badan aysan ka hadlin ayaa jira oo la yiraahdo Engineer Saalax Sheekh Cusmaan la yiraahdo. qof wax bartay degan wadan wax u soo qabtay wasiirka dib u dhiska ahaan jiray dawladii Xasan Sheekh xisbiga la yiraahdo Tiirule ninkaas waa jira. waxaa kaloo jira Cabdicasiis Laftagareen oo hadda inta badan lagu wado in uu ahaan doono shakhsiga ugu maartay dhabarka weyn ee meesha soo galay. hadduu ka uu soo galo in long term waqtiyada dhaadheer dawladda Soomaaliyeed in state Soomaaliya sidii la rabay uu shaqeynaya xilligii waxa dhamaanaya xiriirkan idin jirnay intaan ka baxnay. taasna waa siyaasad aad u fiican. qofkii ku faraxsanaa ku farxo qofkii ma aragtay ay dhib laha dhibto. aniga Shariifku waa jeclaan lahaa inuu soo laabto ma aysan noqonin. waa politics waa siyaasad no big deal. hadduu asaga bax mid kale ayaa imaanaya. waxaa kaloo jirta haddii cod free ah la siiyo hadalkan si fiican u dhageysta. cod free ah oo qofna aan soo dhexgelin oo reer South West ay isla soo fadhiistaan xildhibaanadooda ay doortaan 80% waxaa helaya Mr. Robo sida hadda prediction lagu sameynayo. taas dad badan way u cuntamaysaa dad badan uma cuntamayso. marka waa siyaasadda. teeda kale dadkan Soomaalida ah ee aan ku nooleen dhulkan Digli Miriflaha ama South West aan ku nooleen banaanka waxay moodaan dadkan u dhashay dhulkan Digli Miriflaha inay yihiin homogeneous oo dad oo maartay qabiilkoodaba la yiraahdo Digil iyo Mirifle la yiraahdo ama dadka qaarkood ay ku ranay yiraahdaan Eelay ama sidana yiraahdaan oo de hal qabiil waa ka weyn tahay. dadka ku nool dhulkan South West waa ka daran yihiin kuwa mudug ku nool markay timaado qabiil. marka Shariifka markuu meesha uu ka tagay hadda uu ka dhaqaaqay oo dadkii uu ku dhaafay yiri si fiican oo siyaasi u hadla. hadda caaw markaan dhageystay hadalkiisa isagoo maay ku hadlaya si fiican ayuu u hadlay runtii isagoo pressure weyn la saaray. wuxuu yiri nabadda hala ilaaliyo wax walba hala sameeyo. ka sokowtaa dhulka South West wuxuu halis ugu jiray in wixii la soo dhisay isaga iyo dad kale ay soo dhiseen in ay faraha ka baxaan oo qabiil ay la soo qaato. waayo wax Soomaali ku cusubmaan hadda ay ka socotaa gobolada Sool iyo waqooyi meel bay ka socotaa qabiil. taasna qof idan ugu jirta male. Shariifka wuxuu ahaado dadka hanaca wuxuu doonaa aado at least wax waa soo sameeyo wax waa soo dhisay. marka ma noqonaysa wax walba in ay isa soo sharxaan oo yimaadaan Engineer Saalax Sheekh ama Robo ama Laftagareen. prediction ay sameynaya saadaash wax fiican ma aha laakiin wax baa in saadaalnay dhageysta. marar badanna arimahan oo kale waan ka hadalnay. waxa imaanaya oo koobka soo qaadaya oo madaxweynaha noqonaya sida hadda aan ku arko wixii information ana helay Cabdicasiis Laftagareen ayaa la soo wadaa oo imaanaya. marka qabiil ahaan ilaan Soomaalidu aniga inkastoo qabiilka aan aad isaga ilaaliyo aan aad u nacbahay qaabka Soomaalida haddaan hayno isticmaalno acceptable ma noqonaysaa ma yeelayaan dadka ku nool Koonfur Galbeed in Cabdicasiis u yimaado. Cabdicasiis ma yahay shakhsi u bisil oo maaragtay ka shaqeyn kara oo dadka isu keeni kara ma yahay. taas waan arkaynaa waa la arki doonaa. ma imaan karaa ninkan la yiraahdo Mr. Robo
طبعا sidaad ku maqashaan hadda boqolkiiba 80 haddii free vote la siiyo kuwa baarlamaanka jooga inkastoo baarlamaan walba oo Soomaaliya gobolada uu noqday lacag uu noqday haddii free vote la siiyo boqolkiiba 80 Robo ayay siinayaan dadka inta badan waxay yiraahdaan marka laga hadlo oo debate ama discussion laga sameeyo arrimaha Robo waxay yiraahdaan Sheikh Sharif wasaasu aha Robo na saasu ah hebelna saasu aha marka taas waa mas'ala kale inaan gala dooni maayo sababtoo dad badan ayaa dacar ku kacda marka arrimaha Robo laga hadlo hadda korna waan ka hadlayo waad ogeedeen wixii ka dhacay laakiin hurdayga igama lunta waxa soo kale marka Sharifka saddex waxyaalood ayuu meesha uga tagay sidoo asaga sheegtay kullay aniga I don't believe it aniga shakhsiyan ma aaminsani Sharifka inuu yiraahdo Sharifka kuma ogeyn inuu sensitive saas u yahay over sensitive inuu yahay uu yiraahdo baarlamaankii aan la soo shaqeeyay intaas oo sano ayaa xamar la geeyay oo lagu tashkiilay saas aawid ana waan ka tagay taas aniga kullay waa imari weysay Sharifka Juni Oresa waa aragtay dadka xamaaliga ah ee baabuurta Eritrea ka soo dejiyaan Juniga dhabarka loo saara laakiin hadii lagu soo tuuro logic oo science iyo physics qofka uu ku dul dhacaya lama soo tuur karo jawaanka dhabarka marka la saaraya xamaaliyaashan ka hadlaya qofka xamaaliga markuu shaqeynayo laakiin jawaanka dhabarka loo saara marka physics wuxuu ka caawinaya hadii jawaanka dhabarka loo saaro inuu wadi karo laakiin hadii lagu soo tuuro speedki uu ku socday xawaarihi ku socday marka Sharif ex madaxweyne waxa ku dhacay jawaankii uu dhabarka saari lahaa oo xamaali lahaa kor looga soo tuuro waa ku dul dhacay iyadoo taas ay haysata ayaa ninkan generaalka ah ee ciidamada Ethiopia qaybtii saddexaad haysta intuu ka soo degay baydhabo mar badan yimid ayuu yiri hadda baydhabo waa ogtihiin oo waan naqaanayo rag Ethiopiaanka meesha jooga ha isdhihin abay baa yimid isbedel baa dhacay balaa dhacay weli iyaga waxay rabaan ka sameeyay wadanka dhexdiisa la yiri Sharifo hadee meeshii lagala soo hadlay ana ma dhihi kari waxaan ugu ma sheegi kari maybe waa la soo hadlay laakiin tan in long term strategic mistake uu sameeyay Sharif waxay ahayd in dawladda Soomaaliya ee federaalka ay xaruntoodu ay tahay Muqdisho uu ka soo horjeesto isagoo raacaya raggan aan u furi karin ee u raray puntland la geey waa loo saci waa la dhaartay Facebook la soo galay aawe maxay kugu taalaa maanta hadii telefoon ay ka qabtaan ayay ma aragtay ay aad nasiib leedahay waxaana filaya inay ku fikirayaan siday ugu soo laaban lahaayeen ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka iyo federaalka say ugu soo laaban lahaayeen sheekadu waxay noqotay cunug yar oo 7 jir ah oo cunto diidaya oo si uu diidayo hooyadiisa ama ayeeyadiisa ay cuntadii ay ka cunto marka dambena cunug dhulku isku garaaco iraad cuntadiisa saas oo kala haysta hadda si ay ku bilaabaan male si ay kula hadlaan male hadda tan waa bilowgii waxa ku xigta Dr. Gas ayaa ku xigta maanta dad ayaan maqlayay qorayay Puntland ma ahan South West oo kala ma ahan well Puntland iyo South West labadooda waxay ku yaalaan wadanka Soomaaliya ay ku yaalaan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay ku yaalaan marka hadee Soomaalidu xoogaa way iskala weyntahay Soomaalida kale taas waxa la arkayaa marka isbedelka uu dhaco laakiin qofkii ku fikiraya South West way ka duwan tahay Galmudug ama waxay ka duwan tahay Hirshabeelle ama Puntland uu hurdaya experimentigan waa lagu tijaabiyay waana loo guulisay Hirshabeelle waxa la leeyahay systemka wadanka shaqay kala dambeyn ha imaato waa la diiday tan kaliya aniga maanta aan ku faraxsanahay waxay tahay Prime Minister Khayre inuu yiri ma doonayno qof saddexaad inuu na soo dhex galo inaga Soomaali ah hadii waa laga soo daalay dawlad kastoo timaaday burburka ugu horeeyay iga sameynay marka Sharifka jambal ayaa loo dhigay toosh oo battery aan ku jirnaa la siiyay hadda ma maqasheen weli Abdul Gas iyo Ahmed Madoobo ka hadlaya ama xaafo ka hadlaya xaafa saabatiisa haysta jamhuuriyadda kala laga agdhisay ma jirto cid ka hadlaysa ma jirto ninka maanta siyaasad ahaan markii horena lagu qoslay oo la yiraahday traitor baa tahay waa ninka la yiraahdo Waare ee Hirshabeelle Waare runtii ogaaday maalmo xamar yimid xamaraan joogay wuu hadlay waxyaalo badan oo ka hadlay lama hadlin istijiyay wuu istijiyay runtii waa fahmay hadda marka in maanta Sharifka uu saan ku baxo waxay faa'iido u tahay Somali State jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya faa'iido ugu jirtaa
soomaali faa'iido ma ugu jirtaa in uu yimaado uu madaxweyne uu ka noqdo injineer saalax sheekh cusmaan boqolkiiba boqol soomaaliya faa'iido ma ugu jirtaa in uu yimaado cabdicasiis lafta gareen waa ugu jirtaa boqolkiiba waxaan dhihi karaa 50 ilaa iyo 70 ayaan siin karaa reer south west haddii ay rabaan in robow uu madaxweyne u noqdo good luck to them waa democracy waa wax qaraar haddaba ninkan brazil qabsaday oo cunsuriga ah oo garabka bidigoo dheera wuu qabsaday marka waa democracy laakiin soomaaliya faa'iido ma ugu jirta u malayn ma faa'iido ugu jirto in uu robow uu ka noqdo south west laakiin robow hadduu noqdo oo raggan daalan oo laga daalay uu safka la galo uu la shiro oo dowladda xiriiraan u jirno u yimaado robow wuxuu noqonayaa disaster ayuu noqonayaa marka cid u baahan male laakiin robow inuu yiraahdo soomaaliya dowladda soomaaliya ayaan la shaqaynayaa isaga iyo kuwa xataa kasii daran haddayba la shaqeeyaan uu yiraahdo soomaaliya aan la shaqaynaya wax walba la laqi karaa markaas waxaa la dhihi karaa soo dhawow laakiin sheekada baydhaba lagu shirayaa iyo kismaayo iyo garoowe iyo cadaade iyo hadday noqoto dowladdan xiriirka u jiraynaa iyo imaaraadkaan tegaynaa iyo sacuudigaan tegaynaa hadday noqotona robow asna waxaa hubala in long time hadduu noqdoba meeshuu maraya injineer saalax sheekh asna meeshuu maraya cabdicasiis lafta gareen meeshuu maraya aniga maanta haddaan xildhibaan ahaan lahaa wax aan dooran lahaa oo la dhihi lahaa yaad u dooran lahayd maanta madaxweyne inuu ka noqdo waxaan dhihi lahaa boqolkiiba boqol anoo shaki iga jirin haddii aan wax isbeddel dhicin injineer saalax sheekh cusmaan aan dhihi lahaa bal caawa dadkiina kunka iyo wax la jiray daawanaya waxaad raadisaan injineer saalax sheekh cusmaan bal raadiya ninkaas bal ninkaas raadiya fiiriya wuxuu waddanka usoo qabtay iyo wuxuu ahaa nin meesha u dhashay laakiin ma aqaano inkastoo qabaa'ilada aan kala aqoonin ma landheera ilaan landheera waa wax jira meesha hadduu yahay waayo qabaa'ilada dad baa hadda ku taageeraya hebel ma dhahay magaciisa ma sheegaya hebel waxay ku taageerayaan qabiilkooday ku taageerayaan dad baa waxay aaminsan yihiin balaayo war dee qolada eelaaydu ma qabiilay leeyihiin yay leeyihiin dee ma kasaayaan dadka qaarkood oo dhulkaas ku nool waa ka qabiil badan yihiin waana ka qabiilaysan yihiin dadka ugu qabiilaysan oo ugu balaaysan soomaaliya ee mudugdega waa ka daran yihiin marka waxay ku leeyihiin luqadda iyo lahjadda ay ku qaldin mayga ah mid kastoo socdo oo kule ariirow may sheegtay ma ahan isku uma socdaan waa dad ma aragtay qof walba dhinaciisa kale u socda waa taas marka shariifka way ka halaawday waxay uga halaawday aniga shakhsiyan aadan u taageeray caawa ma naxsanahay shariifka ka tagay ma naxsani wallahi waxaan u naxsanayn waa siyaasad xalay waan faraxsanayn waxaan ku faraxsanayn ilhaan oo soo gashay aan inay soo galayso xalay waxaan rabnay dad badan inay soo galaan aan soo gelin waa siyaasadda laakiin marar badanna waan u sheegay waxaan idhi strategic mistake aa samaysay waxay ahayd maalinta kuwan istiidyada alla safatay guddoomiyaasha kale alla safatay isagoo ay dhibayso marka shariif kuma uusan bixin jaalayaal si fiican dhageysa shariif kuma bixin wuxuu yiri ma dhihi karo nin weyn oo runta ka fog ayuu noqdo ma dhihi karo laakiin shariif dadka hadda nagu soo biiray si fiican dhageysa wuxuu yiri sababta aan uga baxay baarlamaanka intaan la soo shaqeeyey oo xamar la geeyey oo la tashkiilay oo laga waday anna waan ka tanaasulay taas cid kaa yeelaysa male mudana shariif anagoo respect kula hadlayno oo ma aragtay kule codbixinta ma ku soo bixi lahaa meeshaan is about money haddii lacag aad haysatid oo ku baxaysaa Somali state lacagtay haystaan ma haysta u malayma inuu haysto laakiin dadka u dhashay south west qof oo maaragtay federaalka wato qasab ma lagu geyn kara maya dadka cod male laakiin qofka federaalka ka soo baxta hadduu dhulkaas u dhashay tabcan xaq ayuu leeyahay ani haddaan u dhalan lahaa dhulkaas south west aan u dhalan lahaa xaqaan u lahaa inaan madaxweyne aan noqdo haddaanba lacag aan haysaba meesha lacag ayaa la isku dhaaf marka tan ugu weyn oo shariifka uu ku soo celiyay wuxuu ka baqayay in dhibaato ay dhacdo nabad xumo ay dhacdo wayna dhici kartaa way dhacdaa horena way ku dhacday meelo badan oo Soomaaliya waan aragnay kismaayo dhowr maalmood ka hor waxa ka dhacay waan ogahay askar qaarkood in xabado la isku tuuray waxyaalahaas south westna waa meesha kaliya ee Soomaaliya hadda fragile ah oo maaragtay dhibkeedu iska badan yahay haarkina kaliya dhismooyinka laga dhisay baydhabo iyo meelahan kale dhulka la soo gudbi karo dadku way dhibaataysan yihiin argagixisada maalin walba ay dhibaato ku samaysaa hadda dhow ugu dambeysay dadka lagu xasuuqay baydhabo waad ogeedeen marka haddii daacad ay ka tahay shariifka uu yiri waxaad dhistay
waxay ahaadaan xataa hal jid ama hal airport ama hal sar uu dhisay haddii daraadiisa ay maaragtay ama wejigiisa asoo jooga ay ku burburi lahayd asoo xukunkii rabo hadduu uga tanaasulay hadda ninkaas amaanu ku mudan yahay laakiin generaal ethiopiana hadduu intuu yimid oo uu dhahay haye sharif waqti ayaa gaar iska dhaqaaji uu yiri haddii waxaas waa naqaanay Soomaaliya waa ku naqaanay taasna keligii ma ahan waxay ku imaanaysaa mid walba oo maanta madaxweynenimo ka shaqeeya Soomaaliya ku imaanaysaa waxaan ka hadlayaa qolada gobolada Soomaaliya ee gees raacsan ilaa raas karbon ee ka hadlaya joogan waxay ahaadaan haba tarimayso marka electionkii waxaa la isku dhex wadaa kulli waa idin soo gudbi doonaa waxaa la isku wadaa qofba haddii soo wacay mar dhow intaan live ka soo gelin waxaa la isku wadaa in 10 maalmood kadib uu dhacayo ama in gadaal loo dhiga baarlamaanka iyo qoladan samaynaysa dhanka iyo doorashooyinka samaynaysa in gadaal loo dhigayo si loo eego sidii wax loo qaban lahaa marka ma doonayo inaan kusii dheeraado halkaas ayaan ku dhaafayaa tan marka intaanan ka bixin qaybta labaad waxaan ku sheegayaa waxaa dhacday asbuuc muddo iminka laga joogo ilaa iyo 9 maalmood waxaan ku sugnaa magaalada Istanbul waxaana ka qayb galay furitaankii airportka Istanbul International Airport airport aad u weyn madaar aad u weyn adduunka ugu weyn aad u qurux badan oo meesha diyaarada laga hagana loo sameeyay qaabka copra ama maska loo sameeyo kale oo runtii qurux badan ayaan tagay runtii wafuud Soomaali ama safaaradda ama qof kulli anigu ma arkin shakhsiyan intaan meesha joogay kuma aan arkin dad badan ayaa ka hadla markaa waxay ka hadleen arrimo hore aan uga hadlay oo ahaa xiriirkii Soomaaliya iyo Turkiga wuu xumaaday ayaa la yiri waa meeshii ugu darneyd waxaa la kala qaatay safaaradaha la kala qaatay waa la kala tegay inta badanna dadka social media iska soo galo iska hadla aan adduunka ka warqabin hadalkooda dhulka lagama soo qaado laakiin waxaan aragnay siyaasiyiin xildhibaano dad waxyaalahaas isticmaalaya xiriirkii wuu xumaaday muxuu u xumaaday waxay yiraahdeen Soomaali waxay la safatay Sacuudiga ay la safatay yiraahdeen oo runtii hadda koraan ka hadlay inaan ka hadlana aan doonin ay la safatay runtii Soomaali Sacuudi lama safan Soomaali waxay kamid ahay jaamacad Carabta oo Djibouti ay ku jirto oo waxay ka soo saareen memorandum oo ay leeyihiin waxaan garab taaganahay ilaa ma aragtay laga sameeyo baaritaan qaabka loo dilay Khashoggi iyo waxaas dadka isugu dhow ee boqorka jeer islaamka waxay ahaayeen boqorka Sacuudiga Salman iyo madaxweyne Erdogan ayaa isla hadlay oo yiraahdeen xiriirkii anaga noo dhaxeeya marnaba ku burburi maayo dhibaatooyin dhacday aan xalino marka taas lama arkin waxa la eegayaa Soomaali intay fault ay ka leedahay dawladdan intay wax kaga halaysan yihiin ayaa la eegayaa oo waxay la safteen Sacuudiga oo gabdhahani booyaasha ka dhigay xoolahani diiday oo way qayleen maalmihii dambe ugu dambeeyay waxa dhacday waxa la yiri bas xiriirkii wuuba dhamaaday waa lagu kala tagay mar dhow safaaradii visa waa la joojinayaa saan baa la sameynayaa balaaya ka dhacday saan in la yiraahdo marka sheekada say u socotay maanta oo bishu ay tahay 7 ayay soo afjarantay maxay ku soo afjarantay dawladda kama haysan hadleen sababtoo ah wax irrelevant wax aan jirin ayay ahayd in xataa laga hadlo waxyaalahaas oo kale sababtoo ah wax oo runta ka fogoon jirin maanta aadan cadda waxaa ka soo degay ciidamada Turkida kuwoodii ugu waaweynaa ciidanka badda cirka mariiniska waxaa ka soo degay abaanduulihii waxaa ka soo degay wasiirkii wax walba oo ciidamada ka soo degeen maanta diyaarad qaasiga wataan marka maxay u soo degeen hatta ma dhicin in NATO meesha ay NATO waxaa kamid ah tabcan Turki meelaha oo ay ku sameeyaan dabaaldeg iyo dhooltuska ay ku sameeyaan xitaa ma tagin intaasoo ciidana ma tagin oo generaaladii iyo gaashaano sare iyo sareeyo guud isla socdaan ayaa soo degeen maanta marka iskama imaanin wadan aan lahayd bari xiriirka lagu jira iskama imaanin waxay u yimaadeen in Soomaaliya horumarkeeda xiriirka markuu heerka uu gaar u wanaagsan yahay waxa gooni u yimaada ciidamadan kadibna hadda waxaanba maqlayaaba madaxweyne Erdogan ayaaba soo socdo inuu wadanka imaado u rabaa marka dadka mar walba waxaan iraahdaa ra'yigayga markaan ka hadlo ilan ra'yigayga ka hadlayaa waxaan iraahdaa bal aan kala saarno Soomaaliya wadanka Soomaaliya iyo dawladda marka haddii Turki xiriirka noo jiro ma ahan inay dhibayso farmaajo qeyre iyo mursal iyo inay dhibayso ma ahan iyo Yuriso iyo Heblow inay dhibayso ma ahan waxay dhibaysaa Soomaaliya viisooyinkan hadda aan helno dhaqaatiirtan aan u tagno Turkida kumaan kun ardayaan ku arkay
istanbul turki guud ahaan bishii hal mar aan tagaa tusaale ahaan waxaan ku arkay kumaan kun oo ardayaan ku arkay maalin walba diyaarada markay soo degto waxa ku imaado intaasoo kun diyaarada military ayaa ka baxa dhalinyaro lagu tababaraa gobollada waxa lagu tababaraa arday ayaa joogta dhaqaatiir ayaa joogta afka turkiga ku hadlaya waxaa joogta maaragtay dad taangiyada la barayo dad diyaaradaha la barayo helicopterka la barayo marka sheekadu waxay noqotay kaliya in audience dadka ila hadlayaan oo runtii mar raba qof bani aadan oo Soomaali aan ku tilmaamo maangaab ay yiraahdaan Soomaali iyo Turkida xiriirkoodii hawadu ka baxay war adduunka saas uma shaqeeyo diblomacy saas uma shaqeeyo xiriirka Soomaaliya iyo dawladda Qatar u dhaxeeya hadda xiriirka Soomaaliya iyo Sacuudiga u dhaxeeya xiriirka u dhaxeeya Turkiga iyo Soomaaliya waa waqtigii ugu fiicnaa ayuu hadda ku jiraa maxaa kaloo la iloobay wadanka horumaray oo hadda oo faa'iido laga helay waxaa la iloobay dad badan ayaa tabay qaraxyadii badnaa runtii waa erey aad u furxan in dad badan baa tabay way tabeen sababtoo ah waxay leeyihiin dawladda Soomaaliya ayaa dhibaato ka soo gaaraysa dawladda Soomaaliya dhibaato ka soo gaari mayso markuu qarax dhaco dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya ayaa dhibaato soo gaaraya yaa ka hadlayo aad maqasheen diyaarad hadda waxaad ka quraacanaysaa Toronto ama Washington habeenkii waxaad ka cashaynaysaa Muqdisho mar raba inaan iraahdo waa markii ugu horreysay inaan iraahdo أول بوال سمين جري دتك رشة كهالي ما ينتهي ويحكي دنبي كهور ديار على إيطاليا إيمان جرتي جرمال كلا مري جري مريكا ملبل تيجي جري ديار دي توبيان كهالي يا وهذا إيماتا إيمانيسا وحكرو إيمانيسا جنبو جت أوكي إيمانيسا نيروبي كإيمانيسا مركا هذا ويرانيا تكجدي يوحول ويرانيا مركا محاكيني وحكلا مكيني وحكيني نبضة وودنك إسبدل كل حاجة مركا موحان ليا هاي سيدي أما تضبطي فبرايو wixii ka dambeeyay ayaa waxaan dhahay ma lihi taan hadaa inaad xaqdaraan sameynaya arimahan waa wax soo jiray oo soo socday laakiin hadda isbedelka wadanka ka dhacay iyo wanaaga dadka qurbaha jooga mar walba kuwan yaan la idin kaga sheekeen wadankii waa lagu kala guri way u dhamaatay bilay waxa dhacday engineer Yariso oo aan dhihi karo shakhsiga prime minister prime minister kuna soo galaya kasakow shakhsiga ugu shaqada badan ayaa waxa lagu eedeeyay qashin guri hortiisa yaala ama ganacsi yaala iyo roob ayaa lagu eedeeyay oo la yiri 42 milyan ayaa laga qaaday dadku waxaad moodaa canshuurta inay qaadaan taban canshuur waa la iska qaadaa laakiin dadka canshuuraha waxay ku wareereen canshuurka qofka guriga degan laga qaado ee taxiga iyo ninka ganacsiga inay marnaba isku mid ahaato ma ahan meeshan waxa la doonayaa dadkii ka dooday oo yiraahday ma bixinayno value added tax ama VAT bixin mayno dadka yiraahdo xaafadaha waxa laga qaadaa bulaacada qashinka waxa jira taxi oo local taxi ee dawladda hoose ay qaado dawladda sare aan shaqaan ku lahayn marka dadka markay isku dhex walaaqaan dawladda sare oo dawladda oo state ka xukumo prime minister ku xukumo ee dawladda hoose aan shaqaan ku marka la isku dhex keeno waxa la leeyahay simplicity ayaa laga dhigaya waxa la soo sawirayaa meeshan eega hadda kor waxaan arkay shakhsi reer Hargeysa ayaa wuxuu ugu yiri anoo Muqdisho joogo Cabdinaasir waxaan la yaabay xaafad baan deganaa buu yiri wallahi runtii aad aan la yaabay qofkaas wuxuu igu yiri xaafad baan deganaa islaam baa xaafadeedii soo xaaqday gurigii bay qashin ku dul shubtay maalin walba anaga buu yiri qofka markaas waxay tiri bal eeg farmaajo qeyro dawladda ilaahay naga riday maxay meesha noogu xaq waayeen gurigeeda horteeda ay qashin soo dhigtay markaas leedahay farmaajo iyo marka farmaajo iyo qeyre maxaaqin bay soo qaadanayaan horta magaalada dad ka shaqeeya dad marba magacood inaan sheego oo xaaqa oo nadiifiya laakiin bulaacada jidka Sodonka tusaale ahaan ilaa iyo jidka wadnaha dhankan oo dhan 1988 ilaa iyo 90kii inta dagaaladu dhicin ka hor waxa la galiyay tubooyin dhulka biyaha qaadaya la galiyay tubooyinkaas qaar waa la baxay waxa galisay wali aad aan xasuustaa dadkii xasuusteen Muqdisho xasuusta waagaas dadkii haday nool yihiin shirkad la yiraahdo Starbrick Interplan ayaa xamar waxay galisay tubooyinka biyaha qaaday waxyaalo kala duwan qaarkood waa la xaday hadda iyadoo la nadiifinay marka engineer Yariso haddii aad ka sugaysaan inuu subaxdii soo tooso oo guryihiin idin xaaqo oo biyaha idinka joojiyo heli maysaan biyaha waxa joojin kara waa local canshuur la bixiyo oo ay bixiyaan business rate waxa la yiraahdo ilaan meesha ugu badan oo hadda laga dooday waa suuqa bakaaraha one of the richest market oo East Africa ku yaala bariga Africa ku yaala marka haddii la yiraahdo subaxdii marka la soo tooso biyo ay soo maraan biyo meel aysan marin meel adduunka meel walba qaada laakiin haddii canshuurtii meel qalad lagu bixiyo tabcan biyaha way soo galayaan oo fiirso magaaladeedii kale Muqdisho ka sokow magaalada aniga waqti badan aan ku soo qaatay yaraanteedii waxa ay magaalada Napoli ee wadanka Talyaaniga
canshuurtii ay siin lahayn boqolkiiba 80 ay siin lahayn dowladda hoose waxay siiyeen maafiyada oo la yiraahdo Camorra siiyeen magaalada Napoli xilliyada kuleelaha samarka ee tuurista yimaadaan waxay noqotay meesha ugu wasaq badan xamar iyo bakaara waxay noqonaysaa Hollywood ay noqonaysaa maxaa keenay Yariso shilin uu jeeb ka soo bixday waxay leeyihiin 42 milyan magaalo oo metropolis oo 3 milyan ay ku nool yihiin waa pennies marka Yariso guuda wax walba uu sameeyo sar haduu burburi waxa leeyahay sarba burburisay oo basiiba hadii sartan aan la burburin wadanka wuu socdaa wuu shaqeynaya dadka qurbaha jooga ee beenta dadka ay ka u sheegayaan ha dhageysanina wadanka qof aan tagin qofka haduu ku sheego ila Soomaaliya way u dhamaatay waa sidan war ma Soomaaliya u dhamaatay dowladda u tag la dagaalan waxa artid dheeq qalad baa leedihiin musuqmaasuq baa sameeyeen laakiin wadanka u tur wadanka kulal ilaan koon way baxayaan tan kale aan ku soo laabtay ra'iisul wasaare hadda wuxuu ku socdaa hadii la yiraahdo la gaaro dabaaldega Febraayo haduu la yiraahdo markaan gaarno 2 sano 3 sano haduu gaaro recordkii Mr. Gedi uu heesay uu dhaafaya markaa mana ka dhicin wadanka waa markii ugu horeysay markaas waa la dhihi karaa markii ugu horeysay حسن قيرنا وشخصية أنكو أركي 9 o'clock إنه شقة سوق الهبينكي 9:30 يسوي دالن كبح شقة إسلام كان قفل بو ماذا إنه قرعيش كدونه أو أدم جديد هذا إنه فريش شقة سوق ومركي جوه رئيسي إرجان أذكر أكتان ودنك إن قف مسؤولة حبس الجلية وايو استيد كيل عجيز إنه سماس غير صدي مركي قفكي حتى وحد لها وحسمين لها هذا ويس أجيها وحوس ليه الهيكل وحمد تابناي حسن غيراء أمريكا أركاي هذا بساسين أمريكا بتجوجان قف بساسة جوج هدي لقوي ماذا لو يرهدو إيه حلي أرنتان عندمية والعقد بحسيت ويكذا بمعنى إيسا كاميرون بميل بيالا ضد بدن أي كل حظي مركا ضد كأطورة ضد كحلال كلودي بي حلي باند وزيرة ده وحي ضد كأطورة إسكت دافع معركتي مسوق وحس كدافع دولة واشقين إيسا مروا البر وحلي هذا ما رحلوا وإن لو الدعاء ما هنتغيرك ليه أنا هذا بدن أيه واحد يرهدين شريف حسن أيات تاجرتي أظن نبدي نقول قفك حريوية قفك ربو تاجر كذا حريوية لكن معناه هذا ما إن أنا الدولة الصومالية هذا أن تاجر معناه هذا ما قف كذا تاجر كرتا مرة قفك مرة الحكومة يوصل قف تاجر كرين مرة الدولة وحلو بهاي إنه اللي يرهد ضدك يرهدان ليه بواجرة ودنك ليه بواجرة هبين هوري حالي ما هبين هوري كبر الصوماليات وجامعات كالصوب حدي ومعلماتها ayaa askari si arxan daraa u dilay maaragtay xaafada Waaberi waxa soo kale in laga aamuso ma waa aragtay Facebook ayaan soo galay gabadhaas aqoon uma lihi laakiin waxaan isaga midnahay Soomaali baan islanahay inaan soo qorno waxyaalaha soo kale waa muhiim waa qalad askarigiin in la soo qabto oo maaragtay la marsiiyo sharciga u adag in la marsiiyo marka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dowladda Soomaaliya marka أمر ما يكون بحنا محي ورانا يعني أسكريو وجبر وبري كذلك تدل مية وقرد سيد الله سمية تنكلي وحن سوق قرآن إلى إيري عاوا كل رالي هذا كل راضي وحن الآن سوق قري مقالة لندن هذا حالة يقدم بيسي لا بقى فضي اللي قلت لي فميسان طبعا اسمه بربرقي كرنو Somali waa dhibaysan tahay laakiin mar walba waxaan ku soo laabtaan ilaahda war Somali is better of 2 years ago oo hadda hadii xaalku uu xun yahay waan ognahay xaalku suu yahay wadanka hadda ma aragtay haloo duceeyo haduu xaalku xun yahay laakiin haduu xaalku fiican yahay qof walba ku faraxsan ciidamada qalabka sida ciidamada nabadgelyada kuwa booliiska ka shaqeeya xamar meelaha kale waxay ku shaqeeyaan dhibaato aad u fara badan waxay uga baahan qofka Soomaaliya inuu Soomaalnimo ku taageero marka nabadgelyada injineeriisa waxa lagu haysto wuxuu ahaa nabadgelyada wadanka ciidamada qalabka sida ciidamada booliiska nabad ma noqdaan mar walba siyaasad ma noqdaan waa dadkaas way raagayaan way joogayaan arintaas qof ay ku dhacday aniga aan qaraabo aan nahay oo ilaa hadda hawada ka baxay ayaa jira ma rabo inaan sheego magaciisa marka marnaba qofkii siyaasaya Soomaali ma ahan qofkaas wuxuu necab yahay Soomaali dawlad ma necba ciidamada qalabka sida lama siyaasadayo nabadgelyo lama siyaasadayo debate waa laga sameeyaa baarlamaanka إلا إن شرع دجياش يجا وقال لك أنا واحد إلى نبض وإنسان لا سمية لكن إن فيسبوك سوف يصير نبضي كعنتي كبح ضي أضو نيروبي إسطنبول مينيسوتا فردي أو حلبانة واللي ماشي كسوق إلى مسياسية وحبت تري مايسو واحد تري سبيرة تمجرته مركا هذا الكي أنت سامك شوف جريا شريف كان واحد رجعنا جود لك هدي إلى هنا وكانوا جينا صالح الشيخ عثمان الحمد لله هدو إلهي نو كانوا لفت جرين الحمد لله هدو إلهي وكانوا غير كفر قلبت أو أي تاجرسيين روبو
alxamdulilah qofka iga xildhibaanada ay taageerayaan marka intaa ka horeysa waxaan kula dardaarmi lahaa reer koonfur galbeed oo ah dhul aan aad u jeclahay in dantooda ay ogaadaan haddii xabad isku dhuftaan qof kale ku dhiman maayo oo ka yimaaday turki ama ka yimaada maraykan iyaga ayaa ku dhimanaya taariikhdana way xusuustaan way ogyihiin wixii ka dhacay 90 ilaa 93 dadkii ku dhintay ee genocide-ka lagu sameeyey wax walbana way ogyihiin marka wax walboo dhaca maanta ninkii qabsada haddaa isku reer aad tihiin wax adiga uu kuu samaynayo oo ku soo gaaraya ma jirto maanta mid adeerkayda hadduu yimaado shil la isiin maayo xil la isiin maayo qof walbana waa ogyahay marka dantiina ayaa ka weyn kii yimaada oo isleedihiin waa ku farxsantihiin idinka doorta kii soomaali dan waa ileen soomaali qeybaa ka tihiin laakiin marnaba ha isdhihina state baa tihiin oo waddan baa tihiin oo gooni ma tihidin waddan jubbaland iyo idinka iyo kulli dhammaan kulli jamhuuriyadda soomaaliya ee naqaano raas caseer reer skamboni waxaa laga xukumaa magaalada muqdisho madaxweynaheeda waa farmaajo ra-iisul wasaaraheeda waa xasan cali kheyre gudoomiyaha baarlamaanka waa mursal intaas wixii ka badan waa iska kaftanka iyo xafaalada social media waa factual waa wax jiro oo runta waa idin salaamaya intaan hawada kulmi doono solar portal subscribe iyo like saara anigoo ah cabdinaasir ismaaciil waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu